marka qaar waxa suuragal ninkan ku dhahay ila dood ahlu bid'ah in ujeedadiisu aysan ahayn inuu hanuuno ama uu xaq fahmo xaq doonba ma aha laakiin wuxuu raadinayaa shuhro raadinaya inuu kugu soo caan baxo rabaa ayuu rabaa markaasuu nin caalima ama mashhuura ayuu isku dhiriirinaya wuxuu kaala ila dood hadhow wuxuu rabaa in la isweydiiyo ninkii hebel la doodayo ahaa sheekh fulaan ama caalim fulaan ninka munaadarada la galay ninka uu ahaa hebel waay khalaas waaba caan baxay magacaasoo ka rabaa hadday ujeedadu magac doon tahay fursad looma siiyo majhuulkiisa iska ahaado fursad ha u siinin inaad la munaadarato inaad la doodo baadilkiisa raddi wixii xaqa bayaani asigana ka jeeso ihmaali wax macnaha u yeelin intaasoo ku dhimanaya munaadarada marka waxay u baahan tahay maxaa maslaxa ku jira maxaa mafsadaha ku sugan qofka lala munaadaroonayo waa noocay qof xaq doona ma yahay maxaa laga faa'iidayaa munaadarada lala munaadaroonayo wax badan qiimeyn u baahan yaa qiimeyn karo waxa soo dhan marka ahlul cilmiga qiimeyn kara dadka ahlul cilmiga ayaa qiimeyn kara ma ahan qof wax walba oo hortiisa iskala boodayo intaadan munaadara ama dood gelin ka horna waxa muhiim ah qofka inuu akhriyo ma kutiba fil munaadara wixii culimadu ka qoreen mu'alafaadkii laga qoray aadaabtii kayfiyadii qaababkii waxa soo dhan qofka inuu fiiriyo oo diraaseeyo aaday muhiim u tahay ibn Abbas radiyallahu anhu wa run wuxuu la dooday khawaarij laakiin maxaa ka xasilay dood ibn Abbas radiyallahu anhu waxa ka xasilay aktarkoodii inay toobad keeneen in yara ku hartay khawaarijtii munadaradii uu la galay waxay sababtay saddex qaybood laba qayb ka badan inay soo hagaagaan oo ay soo hanuunaan oo ay fahmaan wadadii ay ku taagnaayeen inay tahay wada qalad ah ishkaalaadkii iyo shubahaadkii ay wateenna way uga jawaabeen dhowr su'aaloodna waa weydiiyey inta markuu weydiiyey ishkaal badan ku furmay aktarkoodna way soo hanuuneen waxay weydiiyeen oo ishkaalka kamid ah Ali ibn Abi Talib muxuu ula heshiiyey Muawiya maxaa xakam loo sameeyay oo Amr al-Aas iyo Abu Musa al-Ash'ari Muawiya iyo Ali ibn Abi Talib maxay xakam uga dhigteen Allah soo ma dhihin in al-hukmu illa lillah fiiri fiqh xumada iyo diin yaani faham xumada meeshay la gaartay waxay ku gaalaysiinayaan Ali ibn Abi Talib in Ali uu nin diray xaqiisa oo ka diray Abu Musa al-Ash'ari Muawiyana uu soo diray Amr ibn al-Aas waxa la yiraahdaa labadan inaan kala matalaya ayaga xakam noo ah waxaan say marka qof xakam looga dhigi kara ilaahay soo ma dhihin in al-hukmu illa lillah xukunka Allah iska la say qof loogu dhiibaya marka idan halka maxaa ka soo baxday natiijo ah inuu Ali gaaliya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wuxuu tiray magaciisi Amirul Mu'minin markii la heshiinayay markaas ay dhahan Amirul Mu'minin haduu tiray fa huwa Amirul Kafirin gaaladu amiru ya marba haduu Amirul Mu'minin iska tiray asoo tanaazulaya raba in la heshiisiyo dadkii muslimiinta ahaa haduusan muslimiinta amiru ahayn gaaladu amiru ya shubahaad kulligood daciifa waa tasaddaxaad waxay yiraahdeen markuu Muawiya la dagaalamayay muxuu u soo adoonso waayay dumarkii dhanka Muawiya nimanka ka safnaa reerahoodii hantidooda maxaa loo qaniimaysan waayay haddii aan la qaniimaysan karin ama dumarkooda aan la adoonsan karin marka hore maxaa loola dagaalamayay wixii ay haayeen oo dhan markay sheegeen ayuu ibn Abbas xabad uga jawaabay radiyallahu anhu wuxuu waxa tiraahdeen in al-hukmu illa lillah wuxuu ka warrama hadii Allah subhanahu wa ta'ala oo xakam u sameeyay oo adooma ah oo bashar oo makhluuqa haduu Allah xakam ka dhigay fi bud'i mar'atin wax ku tacalluqa haween farjigooda dumar farjigooda wax ku tacalluqa ayaa ilaahay xakam u sameeyay ma waysan min baabin awla ahayn in xakam loo sameeyo dad muslimiina oo dagaalamayo islaynaya yaa weyn labada arin muslimiinta islaynaysa weyn arinta uu leeyahay fi bud'i imra'atin ayu Allah xakam u sameeyay wa aayadi Allah subhanahu wa ta'ala fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu baynahum aday ninka inaagtiisa iskhilaafaan ninka xaqiisana xakam ka soo saara gabadha xaqeedan xakam laga soo saaro mas'aladan maxay ku tacalluqdaa waa nin xaaski mid Ali iyo Muawiya maxay u dhaxaysaa waa laba kooxood oo weyn oo muslimiina oo islaynay iska soo horjeeda uu uga jawaabay wuxuuna fahamsiiyay in al-hukmu illa lillah macnaheedu sidii u fahmeen beenaysan ahayn markaasuu yiri ma ka gudba midaan ma dhameeyay saydaan waa dhamays waa ka qanacnay
وعير مد اللبات آتر هذين وأمير المؤمنين هدو ترتري فهو أمير الكافرين النبي عليه الصلاة والسلام وحير في صلح الحديبية مركو قري علي رضي الله عنه هذا ما صالح به محمد رسول الله ساسو أقر إن رسولك إلهي مركز سيدنا هدان أقنا إنه رسول الله هي ما قاتلناه لما ندق لنا ما أقول إن رسول الله لا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام وحير علي وترتر كلمة رسول الله ترتر علي وادي ذي إنه رسول الله ترتره مركز كدب النبي عليه الصلاة والسلام وحير تصي موضع قرانته أصلا عنتي سكو ترتر النبي عليه الصلاة والسلام عنتي سكو مصح ما وحل الله مركز رسول الله ما هذو قال أصل له شينية مركز قال له شينية والنبي ترتر رسول الله من باب أولى وما هي مسلمين له شيسين يدرتو إن الله ترتره كلمة أمير المؤمنين وعلي ترتر رضي الله عنه وحير أيضا واقعا عنه مد سدحات أو محل الله أدون سواي ضمركي دنك معاوية كيف سوجيدي وحير حاكم عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قال دي معاوية لسعته ما أدون صن لهيدين بير عائشة أم المؤمنين أدات رهدان ها كفرتم واد قالوا ذين قال بتي أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام أدون صننا حتى ترى وهو كفر قال لنا جوابته حوا إني سن أدون سكري إذا ماشى كفر قال لنا لا يسكو أدون صدا ما قال لا رد قال لنا يو أودت كذا لا أدون صدا ما تعلم سؤاله مركو جوابي أكثر كودي وصون نقدين مركو هرنا علمي بدنكم التاجنين مركو وجوه الرئيس الله كل مرة وحيبقى كوب الله بين إيرادين در قرحانا وذا تابع إيرادين الدنيا رباضو أكتر يعني در اسكو جوجو وطا أيقنا محيم موجنا ينمركا ضد عبادة بدن أي أهاية أو سجود وضو أي نقطة سيدة عجها جيلو كلا لكثرة السجود وجه هذا زهد بدن موجنا الدنيا واحدة وكذا هنا وكثرنا مركو حيرهن ابن عباس وادي الدنيا تربطها وبلبسنته markaas uu labiskan aan wato mid lamida nabiga aan ku arkay wiir Alayhi Salaatu Wasalaam asoo labisan mar rasuulka ka zuhdi badantiin adinka wuxuu ku jawaabaani waayeen su'aalo weydiyo wuxuu yiri asxaabu rasuulillah ayagoo kumanaanay ay joogan hal qof oo saxaabada kamida ma idin ku jiraa hal qof oo saxaabada kamida ma la idin ka helaya maxay ku jawaabeen ciraade maya hal qof oo saxaabiyo kuma jiro أيضا صحابة النول يهين يدوبين يهين هذه هل صحابي لجواي أيضا وكفي لنصوما إني على باطل كتاجين صحابة الرسول كودن عليه الصلاة والسلام هل قفوا كرع عمي سنهلين مركز جهال إسأروا سطيها يعني أو مال إسكولا بحذي أو وح إسكو آخرين مركز ابن عباس عالم بوها متبحرة أسيقنا عصدي إنه مناظرة لقلو أو علي بن أبي طالب وكعصدي علي والرب إنه كدولو أيور أنت هذا كدولين فرصة السي أنا ما أقول صاحب فرصة بوسية وحبنا أنا لقى فايدة محاير ضد بدنا ديب جود إلى شمي وعلي رضي الله عنه لا تقلمه بسبب ابن عباس أي كسوهنونين ويكسر نقدين خساري هو الله كوابي مرك ضد كلا لا تقلمه ضد كوابين نقدين أنت صاحرت علي بن أبي طالب رضي الله عنه بابيي وحكى كوبا عربي يقول لا marka munaadarada hadii tahay munaadarada noocaas oo faa'iidada leh culimadu ma diidaan laakiin inuu qofku degdego iyo munaadaro dood kaliya ah oo haba yaraatay wax la kala faa'iiday aysan jirin natiijo laga gaarayo aysan jirin midaasi wax macna ah ma soo kordhinayso